ii suura gashay inaan booqasho ku imaado macadkan Elit Language Center oo lagu barto luuqadaha ay ku yaala magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia. Macadkan waxa lagu bartaa luuqadaha heerarka kala duwan bilow ilaa iyo IELTS. waxaana wax ka dhiga macallimiin ka kala timid daafaha dunida gaar ahaan wadamada native Englishka sida Australia, UK iyo Canada. waxaana maamulka madax ka ah rag Soomaaliya oo furay iskuulka waxaana dhigata Soomaali fara badan. waxa ii soo rogashay inaan waraysi kooban la yeesho madaxa Elit Language Center. Assalamu alaykum Aisha, iska waran. Nabad. Thank you very much. Xarunta Elit goorma ayaa la asaasay, sababta loo asaasayna maxay tahay? Elit Language Center started in 2007, and so far since then we've had about 8,000 students come through the school. We average about 350 students a month, and we have about 35 to 40% of our students are Somalis. As well as that, we have also students from Saudi Arabia, Yemen, Iran, Libya and Sudan, and in total we have about 41 different countries. So there's a lot of different students here. mahadsanid. Soomaaliya wali ma booqatay, maxaadna rajaynaysiin mustaqbalka Elit inay ku talaabsato? In Somalia, well, I've been to Somalia 4 times now, and each time I went to Puntland. I've been to Booqasho, and as well as that I've been to Garaway, Gardo, and we went by car, so it was very exciting. In Booqasho we have a school, an Elite Language Center in Booqasho, and also we have a small school in Gardo, Elite Language Center. As well as that, we have a college where we're offering a variety of courses in Islamic finance, but also other ones in public health, in office administration, teaching courses and things like that. In the future we are planning to go to Mogadishu, and right now we've just opened an Elite Language Center in Mogadishu, which is taking registrations now, and we're also hoping to open another College of Islamic Finance in Mogadishu, but that's in the near future. As well as that, in the near future we hope to open an Elite International Primary School for students that would be an international school based on the British curriculum, and that's in the future, that's our plans. But my next stop to Somalia will be Mogadishu, so I'm getting very excited about that. Thank you very much. taasi waxay ahayd Aisha oo ah madaxa iskuulka Elit Language Center. haatanna waxaan su'aalo kooban weydiin doonaa mudane Xasan Cumar oo ah directorka Elit Language Center. mudane Xasan Cumar, waxaad iiga warantaa qaabka ardayda ajaanibta ah oo ay Soomaalidu ku jiraan ay ku yimaadaan marka ay dalkooda ka imaadaan? qaybta ugu horeysa waa qayb Soomaaliyeed arday Soomaaliyeed oo joogta wadanka Malaysia. waxaynu u sameynaa waxaynu u qabanqaabinaa dhanka viisaha iyo koorsooyinka ay baran lahaayeen. qayb kalena waxa weeye qaybta ardayda ka imaanaysa Soomaaliya. qaybta waxaynu u sameynaa waxay soo diraan information ku saabsan xagga passportyadooda iyo maaragtay macluumaadka xagga la xiriira immigrationka. markaasaan waxaan u dirnaa informationka mar alla markuu immigrationka u soo baxo si ayagu aanan dhib weyn kala kulmin. meelaha qaarkood badanaa Soomaalidu waxay soo maraan Dubai, dhib bay kala kulmaan. si sahal ugu yimaadaan wadanka Malaysia ayaan waxaan u sameynay in staffka Elit ay ugu tagaan airportka ay ka soo qaadaan ardaydaas Soomaaliya ka timid. siday Caasha iyo Xasan ba hore inay u sheegeen, dugsigan waxaa la aasaasay 2006 kulley taariikhdiisana markiisa ayaga soo faahfaahiyay.
macallimiinta nala joogta dugsigan waxay ka kala yimaadeen Australia, New Zealand iyo UK. Hello, my name is Zita Varga. I've spent my last 8 months in Malaysia. I'm teaching in Elit Language Center. I find it really interesting because it's such a multicultural setting. The students are from all over Asia, and it's a new experience for me as I was teaching in Europe most of my life. So this experience is a whole new one for me. The students are really enthusiastic at this end of the world in the hot weather, and I hope we can keep up the good work, and I hope everyone will enjoy coming to Elit Language Center. dugsiyada kale ee wadanka ku yaala marka annagana lagu daro waxyaabahan ku faano waxa kamid ah quality-ga macallimiinta aan haysano oo ka kala yimid markaysa saddexda wadan aan hore u soo sheegnay waana native speakers waa waxyaabaha lagu soo doorto dugsigeena ayna ka mid yihiin macallimiintaasi dhinaca ardayda waxana la joogta arday aad u fara badan isugu jirta markaysa jaaliyado kala duwan oo ka kala timid wadano kala duwan ardayda Soomaalida ah ee nala joogta waxay ka kala yimaadeen waxay leeyihiin laba nooc kuwa markaysa wadanka ku yimaada fiisaha touriska ah iyo kuwa ku yimaada markaysa approval oo looga soo saaro fiisaha halkan looga soo saaro kuwa touriska ku yimaada marka ay wadanka soo galaan waayo dabcan Soomaalida waa la ogol yahay inay tourist visa ku soo galaan ayay soo xareystaan fiisaha kadib processka ayaa loo bilaabaa sidaas ayayna waxbarashadooda ku bilaabaan iyaga oo markaysa iqaamada iyo fiisaha ay ku joogayaan wadanka dugsigan Elit u soo saarayo kuwa kale ee markaysa wadanka toos iyaga uga yimaada iyaga oo fiisa haysta processkooda uu ka duwan yahay ka kale una ka fudud yahay qofku isaga oo fiisa haysta ayuu wadanka toos u soo galaya wuxuuna soo dhiibanayaa waraaqihiisa iyo waxyaabaha loo baahan yahay oo dhan requirementiga sida baasaboorka oo dhameystiran sawirada iyo lacagta processing fee-ga ah oo 1,100 ringgit ah oo lacagta Malaysiyaanka ah inta markuu soo dhiibto ardaygu waan u process garanaynaa waxayna qaadanaysaa less than a month bil wax ka yar kadib marka loo soo saaro approvalka isagoo approvalka haysta ayuu ardaygu ku imanaya annaka ayaa airportka ka doonayna ka soo qaadayna ardayga airportka keenaynana iskuulka halka uu degan yahay ama cidda uu ku soo degayana geynayna hostelna waan leenahay meel ardayda aan dejino haddii uu hostelku bannaan yahay ardayga waxaan geynaa hostelkaas haddii aanan bannaanayna waxaan geynaa markaysa qofka uu ku soo degayo ama waan ka caawinaa xagga deganaanshaha facility-ga kale ee markaysa ardayda Soomaalida aan u bixino waxa kamid ah in laga dhaafo markaysa mararka qaarkood ardaygu haddii uu dhibaataysan yahay wixii lacag ah oonan markaysa awoodi karin in laga dhaafo taas waxa u dheer in wixii markaysa buug ah oo ziyaado ah in la siiyo haddii ay jirto wax markaysa taakulayn dheeraan ah oo dhinaca buugta iyo facility-ga aan bixino ah iyakana markaysa taasna waa laga caawiyaa marka Soomaalida waxaan u sameynaa soo dhaweyn aynan markaysa ardayda kala helin maadaama markaysa maamulka iskuulka iyo shaqaalihiisuba ay u badan yihiin Soomaali taas waxaan u saarnaa markaysa focuska waan ku dadaalnaa in markaysa ardayda Soomaalida ah aan siino soo dhaweyn gooni ah oo ka duwan markaysa ardayda kale ta loo sameeyo si ay u dareemaan in ay iyagu iskuulka leeyihiin ama aan ku soo dhaweyno wadankan Malaysia. My name's John. I've been working at Elit now for 7 months. I'm from London originally and I've been in Malaysia for about a year now. waxaan ka mid ahay ardayda dhigata iskuulkan Elit dabcan waxaan dhiganahay iskuulkan 8 bilood waxaan ahaa ardayda ka bilowday levelka ugu hooseeyo oo ma aragtaa dabcan markaan iskuulkan aan bilaawayay ma aanan aqoon English labo eray isku xiran sida loogu dhawaaqo
ama sida loogu hadlo ama sida loo qoro alxamdulillaah maanta ma aragtaa ilaahay subxaanahu watacaala mahadsan waxaan u mahadcelinayaa maamulka iskuulka Elit alxamdulillaah maanta waxaan ka mid ahay ardayda ugu levelka sareyso iskuulkan oo Englishka waa galaaska ugu sareeyo oo ma aragtaa IELTS exam diyaarinayo alxamdulillaah ilaahay subxaanahu watacaala mahadsan waxaan rajaynayaa inaan ma aragtaa ardayda kala Soomaaliyeed oo sideedoo kale ah inay waqtigooda aad ugu faa'iideystaan inta ay fursad ay haystaan ma aragtaa waxaan u mahadcelinayaa Royal TV oo ma aragtaa ardayda Soomaaliyeed dhiirigeliyo aad u dhiirigeliyo waana mahadsantihiin magacayga waa Cabdinaasir Maxudiin Cali oo ka yimid Soomaaliya halkaan u yimid inuu wax ka barto waxaana ardaydii dhameysay muddo 3 bilood ka hor college-kan Elit hadda waxay soo aqbashay jaamacadda Malaysia ku taala International Islamic University Malaysia aadaan ugu faraxsanahay waxbarashada college-kan heer sare aan ka gaaray haddana English is becoming profit so college-kan aad u fiican yahay haddana ugu faraxsanahay waxbarashada aqbalaadda ka hela jaamacadda IUM أنا اسمي هشام خواجة من السعودية جيت للمعهد هذا تقريبا من حوالي 3 أشهر والحمد لله أنه احتجت اللغة هذه في حياتي وسألت أكثر من شخص وجيت للمعهد هنا والحمد لله أنه ربي وفقني والحمد لله استفدت كثير من هذا المعهد وإن شاء الله إن شاء الله أتوفق للأحسن إن شاء الله وجميع أصحابي الموجودين هنا معي. كم وقت اللي تحتاج تتوقع هذا في اللغة الإنجليزية نتكلم عنه؟ والله هو إن شاء الله تقريبا 6 أشهر إلى 7 أشهر إن شاء الله أختبر التوفل إن شاء الله وأجيب إن شاء الله اللي هو إن شاء الله كتاب وكلام إن شاء الله. شكرا. أوكي. إبراهيم داود رويال TV ماليزيا.